السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Samarka Code Academy maanta waxaan doonayaa inaan idinla share gareeyo university amba jaamacad cusub oo la yidhaahdo Lambda. Lambda sida garanaysaan kelmadda Lambda waxay ka timi xarafka 11aad ee luqadda Greek-ga. Dadkiina ardayda ahee amba college ka gaadhay amba high school ka gaadhay dee Lambda waxaa loo isticmaalaa wavelength-ka xagga engineering-ka amba circuits-ka marka laga hadlayo. xagga muxuu ahaa angladana trigonometry waa lagaga hadlaa, calculus waa lagala hadlaa, pre-calculus xataa waa lagu dhigtaa. Marka Lambda xaggaasay ka timi. Iskuulkani waxa weeyaan iskuul cusub oo siduu u shaqeeya waxa weeyaan waxay ku barayaan software engineering amba se loo barto waxa weeyaan programmada se loo qoro. Tusaale ahaan videogan kula hadlaya amba kamaradaha iska qaadaan amba aababka teleefanadiina ku isticmaashaan sida Facebook amba Facebook Messenger-ka iyo waxaasoo dhan gebigoodaba waxaa lagu qoray software. Website-kan ay arkaysaan asaguna de software buu ku qoran yahay tusaale ahaan. Marka lacag ma bixinaysid hadday ku aqbalaan lacag ma bixinaysid marka aad $50,000 bishii sanadkii samaysid unbaad lacag bixinaysaa amba marka aad shaqo heshid $50,000 aad samaynaysid. Haddii aanad shaqo helin aanad $50,000 aanad sanadkii samaynahayn bilaash weeyaan. Marka lacag ma bixinaysid. Koorsiyada iyo galaasyada ay dhigaan waxaa ka mid ah full stack web development oo macnaheedu yahay waxa lagu barayaa front end-ka iyo back end-ka. Front end-ku waa xagga hore tusaale ahaan waxaan arkay sidoo dhami waxaa la yidhahdaa front end baa la yidhahdaa. Waxaan xarafyadan iyo qoraalkan iyo waxaan yara qurquruxda badan la soo baxaya markan ku dhufto navigator-ka soo dhan waxaa la yidhahdaa front end. Back end-kana waxaa la yidhahdaa marka aad tusaale ahaan database-ka halkii luuqadan la qoraayo ay amba magacyadaada amba tusaale ahaan inta qof uu ka iibsaday amba inta shayad haysid waxaas meel aad ku store garayn kartid oo computerka ka mid ah oo SQL oo kale luuqad la yidhaahdo ayaa la yidhahdaa back end iyo luuqadaha la interact gareeya oo sida Python, PHP muxuu ahaa iyo xataa waxa weeyaan luuqadahan .NET-ka la yidhaahdo ee Microsoft iska leeyaho kale waxaasoo dhan ayaa backend la yidhahdo. Marka ayagu waxay ku barayaan xagga hore sida loo qoro qoraalkan oo CSS iyo JavaScript iyo HTML luuqado la yidhaahdo ayay ku bari doonaan. Waxay ku bari doonaan Python iyo SQL iyo luuqado kale xataa waxay ku bari doonaan IP address IP-ga sida loo isticmaalo oo IP maaha waxaan u jeedaa AP oo asaguna ah sida loo PI oo sida loo isticmaalo asaguna ah muxuu ahaa wow xataa man eegin wallahi waxay ku bari doonaan algorithm-ka, data structure-ka, graphs-ka, Django bay ku bari doonaan xataa C ayay ku bari doonaan. Wallahi ma baan eegin syllabus-kooda laakiin pretty cool waa wax wanaagsan. Node.js bay xataa ku bari doonaan. RESTful websites-ka API-gay ku bari doonaan. xataa authentication-kay ku barayaan. React baa xataa ku jirta. Marka wallahi waxa weeyaan horeba umaan eegin laakiin full stack waa syllabus aad u fiican ayay hayaan. halkan joogay halkay ahayd okay yeah dabeetana full stack iOS-ka development-kay ku bari doonaan ayay dooran kartaa xataa marka iOS-ku waxa weeyaan iPhone-ada waa aragteen aababka ku jira oo dhan luuqad iOS la yidhaahdo ayaa lagu qoray. Android-kuna waa aababka ku jira Android devices-ka data science oo sida daadada loo structure gareeyo. UX design-ka oo sida layout-ka amba user interface-ka oo dhan sida loo design gareeyo ayay ku bari doonaan. Marka shantaas shay bay hayaan.
oo bilaash lagugu baraayo lacagna aanad bixinahayn marka jaamacadda dhamaysid jaamacadda kabacdi marka aad $50,000 samaysid sanadkii aad shaqo heshid uunbaad dib u bixinaysaa awesome okay haddaba yaan hadalka ugu daalina waxaad ku dhufanaysaa apply now shantaa shay ka doontid baad dooranaysaa waxaan iska dooranayaa full stacka waayo kaasaa ugu popular garaysan oo dadku imika ay ku shaqaystaan inta badan waayo qof walba website buu u baahan yahay company kastaba first name kaagaad siinaysaa maxamed baan iska odhanaynaa last name kaagaad siinaysaa xuseen baan odhanayaa Central Standard Time weeyaan anigu halkan deganahay marka zonekeed joogtaa bay ku leeyihiin Central Standard Time waa muhiimkani galaasyadu waxay ku yidhahdeen Lambda School full-time program runs weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. Pacific for 31 to 34 weeks, depending on holiday schedules. You'll need to participate fully during our live online course hours, and you'll be able to attend. Will you be able to attend for 95% of our live class sessions in their entirety? معناته yahay soddoniya ilaa 34 week ayuu galaasyadani soconayaan 8 subaxnimo 5 galabnimona waa laga baxayaa waa inaad qasab aad dabeetna xilliga aad soo geli kartid online ood galaas ka dhigan karto galaasyadana waa live bay ku yidhaahdeen macnaheedu waxa weeyaan toos buu macalinkuugu dhigayaa oo aad isku arkaysaan oo website-ka online-ka iskaga arkaysaan marka yes waa inaad tidhaahid haddaad odhan weydid ma gelasid do you have any commitment that will conflict your mandatory live online classes wax kale oo aad qabanaysaa ma jirtaa oo kaa soo dhexgelaya inaad galaasyada qaadato oo toos macalinka ula qaadato maalin walba haddaad tidhaahid maya waxay ku yidhahdeen disqualified baa tahay oo galaaskaa ma geli karatid markaa waxaad odhanaysaa no ma maraykan baa tahay sidii somaliland dar ahaan oo kale baan isku qoraya markaa no baan odhanayaa do you currently live in the United States maya baan odhanayaa halkeed ku nooshahay bay ku odhanayaan markaas somaliland ayaa dooranaysaa haddaad hargeysa iyo de somaliland magaalooyinkeeda joogtid dalkeena hooyo markaas somaliland way ku jirtaa somaliland I promise waxaan videogan u duubay baaba ah inay somaliland ku dareen dalalka adduunka ka mida inuu yahay markaas somaliland soomaaliya waa taa ka hooseysa ayaad ku dhifanaysaa and waxay ku yidhahdeen when you graduate from Lambda School you'll be allowed to work full time in the country you now reside will you be allowed ma shaqayn kartaa dalka ma ka shaqaynaysaa sanad full time ma ka shaqaynaysaa sanadkaa markaad iskuulkan dhamaysid dalkaagaas haabaad leedahay yes deetana waxay ka odhanayaan other countries you're currently allowed to work in full time dalal kalood ka shaqayso full time muu jiraa no baad leedahay waayo somaliland baad dhex joogtaa if you accepted all nursing must pay 20,000 euros before the first day of class are you able to do may baad odhanaysaa are you 18 years old ha 18 jir ma tahay ha dadna numberkaagaad gelinaysaa amba skype-kaaga marka email-kaagana waad gelinaysaa marka skype-ka way kaala soo xidhiidheen telefonkaagana way kaala soo xidhiidheen kolba kii aad haysid marka deetna adresskaagaad siinaysaa intaa markaad ka jawaabtid deetna submit ayaad leedahay markaad submit tidhaahid deetna waxay kusoo diri doonaan emailadaas ayaad ku dhufanaysaa aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nala joogtaan haddii aad wax kale oo information u baahatid nala soo xidhiidh insha allahu tacaala galaasyadaasna ka faa'iidaysta salaamu allahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maalin wanaagsan